madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa soo gaaray xarunta gobolka Saaxil ee magaalada Berbera waxaana madaxweynaha iyo wafdigiisa deegaanada gobolka Saaxil si weyn ugu soo dhaweynayay mas'uuliyiinta gobolka Saaxil iyo degmada Berbera mas'uuliyiinta laamaha dawladda ururada maxalliga ah haween dhalinyaro kuwaas oo ruuxayay calanka jamhuuriyadda Soomaaliland kuna dhawaaqayay ereyay ku soo dhaweynayeen madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa markii ay soo gaareen duleedka magaalada Berbera waxay ka degeen gaadiidkii ay saarnaayeen waxaana madaxweynuhu socod luga uu ku soo dhex qaaday shacabka kala duwan ee magaalada Berbera ilaa uu ka soo gaaray guriga madaxtooyada ee magaalada Berbera halkaas oo madaxweynuhu qadar nasasho ku qaatay qadarkaasi nasashada kadib madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo wafdigan uu hogaaminayay ayaa kormeer ku soo maray qaybaha kala duwan ee marsada magaalada Berbera isagoo madaxweynuhu xariga ka jaray taag cusub waxaana madaxweynaha uu warbixiyay shaqada ka socota dekedda magaalada Berbera mariyaha guud ee dekedaha Soomaaliland injineer Saciid Xasan Cabdi marlabaadka waxaan mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdiga hogaaminayo maanta waxa sharaf weyn noo ah inaan ugu soo booqataan dekedii oo aanu qalab cusub ku soo kordhinay kani waa taagii labaad ee madaxweyne inoo yimi intii aad xilka haysay run ahaantiina aad baan kaaga mahad celinayaa tacabka badan aad u hurtay in dekeddu ay dhisanto maadaama ay tahay lafdhabartii dalka run ahaantii in badan baa la yidhi waxbuu madaxweynuhu handaraabay laakiin maanta waxaan caddaynayaa hantidii madaxweynuhu handaraabay inay dee taa shaqaynaysa tahay ilaahay baa mahad leh run ahaantii iminka qalabka halkaa yaalla saddexdaa cusub marka la isu gooyey waxay ku dhow yihiin 11 milyan oo dollar waad arki karaysaa hantida intaa laga qaranka la geliyey alxamdulilah rabbil caalamiin shaqaalihii oo aan dhisnay run ahaantii farxad dheeraada ayay noo tahay madaxweyne maadaama berberitahay dhuuntii ay Soomaaliland wax u soo mareen inaan dhisno mardowna waxaanu xagga badda ka soo eegi doonaa insha Allah waxaana safarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ka warbixiyay afayeenka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac waxaana hadaladiisii kamid ahaa rabbil caalamiin ilaahay baa mahad leh madaxweynaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdigu hogaaminayo ayaa maanta socdaal hawleed shaqo ku soo gaaray magaalada Berbera xarunta gobolka Saaxil madaxweynaha iyo wafdigiisa oo ka soo kicitimay caasimadda dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa inta ay soo socdeen jidka u dhaxeeya gobolada Maroodijeex iyo Saaxil waxay soo dhaweyn diiran kala kulmayeen dadweynaha deegaamada oo madaxweynaha iyo wafdigooda ku qaabilayay farxad iyo reyn madaxweynaha iyo wafdigiisu markay ay soo gaareen magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil waxa si ballaaran ugu soo dhaweeyay maamulka gobolka ka degmada Berbera iyo bulshooyinka reer Berbera oo aanu kala harin soo dhaweynta madaxweynaha iyadoo ay xilli kulul ay muujinayeen jacaylka iyo wanaaga iyo kalsoonida ay ku qabaan madaxweynuhuna isagoo la qaybsanaya dareenkooda waxa uu socod luga ku dhexmaray gudaha magaalada Berbera ay shaariciyada magaalada tubnaayeen shacabka kala duwan ee magaalada Berbera booqashada kadib madaxweynuhu wuxuu booqday dekedda magaalada Berbera halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen maamulka dekedda iyo hawlwadeennada kala duwan ee dekedda wuxuuna xariga ka jaray taag cusub oo casri ah oo ay soo iibsatay dekedda Berbera ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha iyo wafdigiisu waxay kormeereen dhismaha dekedda cusub oo shaqadeedu ay si xawliya halkaas uga socoto waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa maamulka gobolka kan degmada Berbera bulshooyinka reer Berbera maamulka dekedaha Soomaaliland iyo guud ahaan shacabkii kala duwanaa ilaa saaka soo dhaweynta madaxweynaha u taagnaa madaxweynaha iyo wafdigiisu waxay ku sugnaan doonaan magaalada Berbera xarunta gobolka Saaxil ujeedada safarka madaxweynuhu waxay daaran tahay in uu xogogaal u noqdo xaaladda guud ee gobolada iyo degmooyinka dalka inuu dardar geliyo shaqooyinka kala duwan ee ka soconaya gobolada iyo degmooyinka dalka isla markaana inuu xaqiijiyo oo kormeero mashaariicda horumarineed ee gobolada iyo degmooyinka aad iyo aad baa u mahadsantihiin Ismail Ali Horyal TV Berbera